السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوية كسودة channel كنا سيال كميديا وضبطين وين ما انتو حاي كليهين سدائي وكلا سفيهن مدح الدولة ودحي خلافكا واربحين ديرا هذا ياكم مخل دونتانا واسدا حالة السياسة دالك إثيوبيا مقعيق ومسلع نسيب فلنا دان وعصوبتا channel كان سبسكرايب نصار سياد رستو عطو وركيني واربحنا دي نقدم بيسي عديدو ماتسان حتى نقصد واد وركي فافاسان waxaa soo baxay khilaaf culus oo u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya oo aan marnaba khilaafkooda dibad u soo bixin 3 sano ee la soo dhaafay hase khilaafka u dhaxeeya hoggaanka dawladda oo salka ku hayo qaabka loo wajahayo doorashooyinka dalka isla markaasna ay madaxda hadda u kala jabeen laba garab hase madaxda ayaa waxa ay kala safiyiin madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muudi halka israacsiin ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenka koowaad Bashiir Bukaari inkastoo Khayre iyo Farmaajo uusan ka dhaxaynin khilaafka dhanka shaqada haddana waxay ku kala aragduwan yihiin habka loo marayo doorashooyinka dalka farmaajo mursal iyo Muudi ayaa doonaya inay qabtaan doorasho aysan door weyn ku yeelan saamilada siyaasadda Soomaaliya sida maamul goboleedyada iyo mucaaradka taasoo noqon karta mid aan hufnayn dalkana gelin karta dib u dhac iyo xasilooni la'aan Khayre Cabdi Xaashi iyo Bashiir Bukaari ayaa dhankooda rumaysan in doorashada looga maarnayn lagala tashto dowlad goboleedyada taas oo sacad ay u sheegeen Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa ka soo horjeestay gudoomiye ku-xigeenkiisa labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kaas ku xiran fila Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xal ka dhigay in fowdo laga abuuro golaha aqalka sare taas oo keenin karta jahwareer kale oo siyaasadeed dalka Itoobiya waxa xilka afhayeenka aqalka sare ee dalkaasi markii uu horeysay shalay loo dhaariyay Aadan Faarax Ibraahim oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii xubnaha aqalka sare ee Itoobiya ay cod aqlabiyada u codeeyeen Aadan Faarax waxay ahayd markii ugu horeysay oo qof Soomaaliya xil noocaas uu ku qabto dalka Itoobiya tan iyo markii taariikhda inta la xasuusto xildhibaanada dalka Itoobiya ayaa sidoo kale muddo u sameeyay xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale hogaamiyaasha gobolada dalka arrintan ayaa imaanaysa xilli maalintii Isniinta la soo dhaafay iscashay afhayeenka aqalka sare ee Itoobiya Khayre Ibraahim oo ka soo jeeda gobolka Tigreeda ee Itoobiya gobolkaas oo ka soo horjeeda qaabka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed gudahantaas ayaa kusoo gabagabanayna wararkeena maanta warkan warka xigeenta kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah